السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada daawadayaal. Nolosha dadka caanka ahi waa nolol marka dhan laga eego raaxo ah. Waana dad ku nooloonaya hanti badan, laakiin nimco kasta waxay leedahay nusqaanteeda. Wax kasto ay basharku sameeyaanna waxay leeyihiin ceebo. Dadka caanka ahi markay meelaha banaanka ah marayaan waxay u baqaan nafahooda ama wax wareeriye dad noloshooda khaaska ah wax ka weydiinaya, sida inay sawir ka qaadaan iyo wixii la mid ah. Sida awgeed waxay sameystaan celebritiesku dad ilaaliya oo loo tababaray sida qofka loo difaaco. Muuqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa shakhsiyaadka ugu ilaalada adag adduunka. Haddaba intaynaan u guda galin, haddaad ku cusub tahay channelka ha ilaawi inaad nagu soo biirtid oo subscribe taabatid. Kim Kardashian markaad tahay mid ka mid ah dadka ugu qanisan adduunka, dad badanna ku eegayaan fikrad xun maaha inaad malaayiin dollar geliso amnigaaga. Gabadhan Kim Kardashian dhammaan qoyskeedu waxay ku nool yihiin nolol caanimo ah, sababtuna waa iyada. Waxay gabadhan ugu horreyntii ku soo caanbaxday TV showska barnaamijyada TV-da Mareykan laga sii daayo. Kadib waxay caan kale ka sii noqotay baraha bulshada sida Instagram. Kim waxay ku noolay nolol caadi ah intaan gurigeeda la jabsan, waxaana laga gurtay alaab guriga u taalay oo $10,000 lagu qiyaasay, waxaana ku jiray dahab iyo luul iyo macdan kale. Maalintaas kadib waxay go'aansatay inaanay masiibadani dib ugu soo noqon, waxaanay samaysatay gaar badan oo ammaankeeda iyo qoyskeedaba ilaaliya. gabadhani waxay sanadkii $7 milyan ku bixisaa amnigeeda, waxaana sheegtay sidii looga xaday hantida badan inaanay dareen lacagta balse nafteedaba ay u baqday. saacad kasta waxaa la socda gabadhan ilaalo isha ku haya daqiiqad kasta. Ilaaladana xitaa waxay dhigtay guriga ay degan tahay oo ku yaala California. Inkastoo aanay ilaaladu galin guriga, balse waxay ka taagan yihiin jiho walba. waxay gabadhan raacdaa markastay meel u baxayso gaari ka gaar ah gawaadhida kale. lamana arag gabadhan iyadoo meel kaligeed joogta, ilaa waxa la socda niman dhar cad ah oo ilaaliya. Prince Harry iyo Meghan Markle nolosha qoyska boqortooyada British, gaar ahaan Amir Harry iyo xaaskiisu waa mid gaar loo ilaaliyo, siba markay xafladaha dawladda ka qayb galayaan. Prince Harry iyo xaaskiisuba noloshoodu kama faaruqaan xuraasta iyo bodyguardadu, isagoo ah shakhsiga lixaad ee shakhsiyaadka qaban kara boqortooyada Britain mustaqbalka. 19 May 2018 waxa uu guursaday Amir Harry gabadha agtarada ah ee Meghan Markle, waxaana arooskooda maalinta kaga baxay lamaanahan kharash qayrul xada $30 milyan oo ganiga Ingiriiska ah, waana lacag dollar ku noqonaysa $39 milyan. waxay xafladda arooskoodu ka dhacday qasriga Windsor. qof kastoo lagu soo casuumay xafladda waxa loo qoondeeyay ilaalo khaas ah, waxaanay ahaayeen tirada ilaalada loo qoondeeyay marti sharafeedda imanaysa xafladdan arooska ah ku dhawaad 3,000 oo askar iyo dhar cad ku jirta. waxaanay u kala qaybsamayeen kuwa dhar cad ah oo dadka la socda, ilaalo hubaysan, kuwa kale oo dabaqyada saaran, iyo booliska ku dhex jira dadka. waxay lamaanahan isu geyn ku bixiyaan ammaankooda khaaska ah sanadkii $7.6 milyan oo gani oo u dhiganta $9 milyan. waxaanay lacagtani ku baxdaa askarta ilaalinaysa cuntadooda, mushaharkooda, qalabkooda iyo wax walba ay u baahdaan. Lionel Messi cushaaqda kubadda cagtu waxay inta badan dhiirigeliyaan ciyaartooyda u ciyaaraysa kooxahooda, taasina waa ta ka dhigaysa ciyaartooy walba mid caan ah oo malaayiin taageero leh. laakiin markaad leedahay dadku jecel, waxa kaloo jira dabcan dadku neceb. tusaale ahaan taageeraha neceb kooxda Barcelona, Messi-na uu neceb yahay. sida awgeed ciyaartooygan soo galay liiskan aynu kaga hadlayno dadka adduunka ugu ilaalada badan waa mid aad loo ilaaliyo. tusaale ahaan maalin isagoo fasaxaga ku qaadanaya jasiirad ku taala Isbaanishka, markuu ka soo baxay badda waxay ilaaladu qabteen qof aan la garanayn oo dadka faraha badan ku dhuumanaya kuna soo dhawaanaya Lionel Messi. nasiib wanaag laakiin ilaalada qabtay qofkii, iyagoo Messi-na ka fogeeyay meeshii isagoo qofkii cidna waxba u geysan. waxaa jirta dhacdo kale oo khatar gelisay ciyaartooyga 2016 iyagoo ciyaar dhamaystay oo ka sii baxaya garoonka. qof ayaa Messi kaga soo booday kuraasada taageerayaasha, inkastoo markiiba ay ilaaladu qabteen. haddana waxa ilaalada Messi la adkeeyay markii dib loo eegay muuqaalkaas, waxaanay maalintaas ciyaartooygan kooxdoodu raacisay ilaalo badan oo si gaar ah u ilaalisa. waxaana loo fahmay in wax kasta laga filan karo dadka ka agagaarka dhow ciyaartooygan. Floyd Mayweather haddaad joogtid magaalada New York ood aragtid niman xoog waaweyn oo burburan, cid kale ma aha waa ilaalada gaarka ah ee fadhiyahanka Floyd Mayweather. inkastoo uu ninkan yahay dagaalyahan cid walba dhulka dhigi kara oo adduunka caanka ah, haddana bishii Abriil 2018 waxa dhacday dhacdadaasi waxay ahayd isagoo habeen meel kalaab ah ka soo baxay. waxaa gaari ku hor jaray niman budhcada, rasaas baanay ku fureen. waqti xaadirkaas ilaaladiisu 2 nin kamay badnaan jirin. rasaastuna waxay dhaawacday mid ka mid ah ilaaladiisa, isaguna wuu ka badbaaday. kadib dhacdadaas wuxuu go'aansaday ninkan inuu ilaalo badan samaysto. ilaaladiisuna waxay u raacaan meel kasta sida wadooyinka iyo xitaa markuu tababarka samaynayo. Floyd Mayweather waa nin iska jecel xirashada dahabka iyo luulka iyo wax kastoo qaaliya. Rihanna waxaa iska caadiyay in fanaaniinta caalamku badanaa ka haystaan ilaalo badan,
markay showyo qabanayaan iyagoo ka cabsanaya dhibaatada uga iman karta shakhsiyaadka qalalaasaha wada ee shacabka u heesayaan ku soo dhex dhuumanaya laakiin Rihanna sida caadiga ah waxa daqiiqad kasta gaar u ilaaliya 2 nin halkii ilaalaheeda guudna ka kooban yihiin 5 qof siday ula dhaqanto ilaalaheedu waa la yaab waxaana laga qaaday sawirro iyadoo dusha ka saaran mid ka mid ah ilaalaheeduna waa kuwa dusha ku qaada markay masraxa ku daasho badanaana gabadhan waxa dusha lagu qaadaa markay meeshu buuq noqoto waxaana wargeyska Forbes ku qiyaasaya hantida guud ee Rihanna $600 milyan waxaana laga maarmaan ah markaad lacagtaas oo kale haysatid inaad ilaalo badan samaysatid waana sababta dusha lagu qaadayo Mark Zuckerberg sidaynu hore u soo tilmaamnay marka tahay mid ka mid ah qofka ugu qaniinsan adduunka dad badanna ku eegayaan fikrad xun ma aha inaad malaayiin dollar ku bixiso amnigaaga Mark Zuckerberg waa asaasaha shabakadda caanka ah ee Facebook waana mid ka mid ah 5 qof ee adduunka ugu taajirsan waxay gaadhaysaa hantidiisu $80 bilyan maalin kasta waxa uu ninkani ammaankiisa ku bixiyaa $20,000 waana lacag u dhigmaysa $7 milyan marka la isu geeyo sanadkii bilyaneerkan waxa uu hanti iyo qasriyo badan ku leeyahay adduunka mid kasta oo ka mid ah guryihiisana waxa uu u sameeyay ilaalo khaas ah si aan looga jabsan waxa yaalana looga guran gurigiisa caadiga ah waxa la jooga ilaalo badan waxaana ku hareeraysan markasta uu shaqada iyo guriga joogo 16 askari oo shaqadoodu tahay inay difaacaan isaga iyo qoyskiisaba arrinta la yaabka leh waxay tahay inay iyaguna jiraan ilaalo kale oo gaar ah oo iyaguna kamarada ka daawanaya wax walba oo ka dhacaya agagaarka bilyaneerkan da'da yar Beyoncé iyo Jay-Z waxay Beyoncé iyo Jay-Z kala kulmaan shacabka ay u heestaan dhibaatooyin kala duwan tusaale ahaan 2013 waxa ku dhacday Beyoncé in iyadoo masraxa taagan oo ka heesaysa uu qabsado qof ka mid ah dadkii joogay hoolka iyadoo ku dhacday xaggii hoose laakiin isla markiiba waxa ka soo gaaray ilaaladeedii arrinka la yaabka ah waxa uu yahay inaanay gabadhani ka xanaaqin waxa uu qofkaasi ku sameeyay iyadoo iska sii wadatay showgeedii waxaanu arrinkaasi ka xanaajiyay Jay-Z oo qaba gabadhan waxaanu sanadkiiba $4 milyan ku bixiyaa si ammaankeeda loo sii adkeeyo waxa ku dhacday dhacdo kale oo dhacday bishii August 2018 iyagoo lamaanahani ka sii baxaya masraxa qof ayaa isku dayay inuu ka tuuro masraxa kadib waxa si dhaqso ah ugu soo yaacay nimankii ilaalinayay sidii baanay ku badbaadiyeen dhacdadaas kadib waxay go'aansadeen in show kasto ay qabanayaan ka haystaan 500 oo qof oo ilaalo iyo 300 oo kamid ah kuwa dadka ku dhex jira halkay ilaaladooda caadiga ah ee meel kasta u raacaan ka kooban yihiin 3 qof haddaad ka heshay muuqaalkan nagala baqaylin like haddaad ku cusub tahay channelkana ku soo dhawow oo subscribe saar si aad ula socotid muuqaalada dambe soo gelino